هي حفيزك مدحوينها maamul samaynta dalka loo samaynayo ama ay dadka loo fududeynay inay sameystaan maamulo waxay ku salaysan tahay saddex mabda saddexdaas mabda waa muhiim waxa saddexdaas mabda ka soo hara waa arin farsamo laga doodi karo maxaan ku raada dhinac loo riixi karo dhinac kalena loo riixi karo mabda koobaad wuxuu yahay dadka deegaanada in la awood la siiyo ay aayahooda iyo mustaqbalkooda ayagu ku go'aamin karaan oo cod ku yeelan karaan oo dadka dooran dadka ay ayagu xukuumaya oo hogaaminaya marka horena ay soo xuran karaan marka dambana ay dooran karaan fursadaas in la siiyo dadka deegaanada ayaan rabnaa qodobka labaad wuxuu yahay colaadii inay dib ugu soo noqoto deegaanadaas ma doonin dawladda Soomaaliya waxay ka hortagaysaa wax kasta oo keenaya in deegaanada jamhuuriyadda Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan kuwa hadda aan ka hadlayna ee jubooyinka wax colaada inay ka dhacaan ama dib ugu soo noqdaan waan ka soo horjeednaa mana taageerayno waan ka hortagaynaa inta awoodeena in deegaanadaas dadka jooga colaada ay ku soo noqoto oo dib u qax oo ka dhaco oo maxaan ku raadayay mushkiladii colaada ay dib ugu soo noqdaan qodobka saddexaad ee mabaadiida waxa waaye maamul samaynta dalka oo dhan guud ahaan sida dawladda Soomaaliya ay mas'uul uga tahay maamul samaynta jubooyinka dawladda Soomaaliya ka mas'uula dawladda Soomaaliya ka mas'uula markaan leenahay macnaheedu ma xamaraan intaan fariistaan dad u magacaabayna ma aha macnaheedu laakiin dawladdu waxay mas'uul ka tahay wadada iyo qaabka iyo habka ay dadka deegaanadaasi degan ku samaysanayaan maamulada dawladduna way fududeynaysaa waxay siinaysaa sharciyadii maamuladaas waxay siinaysaa gargaarka ama kaalmada muxuu ahaay farsamo ee ay u baahan yihiin deegaankaas waxay dawladdu garab istaagaysaa maamulada cusub ee deegaanadaas ka dhalan doona ilaa ay ka awoodeystaan oo ayagu ay isaga filnaadaan saddexdaas qodob marka laga yimaado inta ka soo hartay yaa degmo hebel xukumayo yaa gobol hebel xukumayo yaa dawlad goboleed hebel xukumaya waxa iskala awoodaas dadweynaha deegaanada degan ma aha kuwa jubooyinka kaliya waa kuwa jamhuuriyadda oo dhan waxaan rabnaa mowqifka dawladda sidaas oo waadix u yahay dadka in been loo sheegay ma haboona in fidna laga taliyo ma haboona in maxaan ku raadaay abaabulo aan macna keenaynin oo wadadii aan ku soo dhunay 20 sano hore ah dib loogu noqdo macna ma sameynayso in dadka qaarkiis ay wulfiyaan maradii colaada maradii reer